madaxweynaha jamhuuriyadda dalkani Kenya Dr. William Samoei Ruto ayaa ku dhawaaqay in dawladdiisa ay bixinayso qarashka caymiska caafimaad ee barnaamijka SHA si loogu adeego in ka badan 2.2 milyan oo Kenyan ah. madaxweynaha qaranka ayaa hadalkan ka sheegay maanta xarunta aqalka madaxtooyada ee dalkani Kenya xilli uu daahfuray barnaamijka caymiska SHA qaybtiisa caawinta ama sponsorshipka wuxuuna sheegay in dadka la ceyminayo ay si bilaash adeeg caafimaad uga heli doonaan in ka badan 6,000 oo xarumaha caafimaadka oo ku yaala guud ahaan dalkani Kenya. madaxweynaha qaranka ayaa waxa uu xusay in caymiska la siinayo in ka badan 558,000 oo qoys, taasi oo uu ku sheegay inay muhiim u tahay barnaamijka dawladda ee kor loogu qaadayo daryeelka caafimaadka ee dadweynaha. sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyay samafale aan la magacaabin oo ballan qaaday inuu caymiska ka bixin doono in ka badan 113,000 oo Kenyan ah. madaxweyne Ruto ayaa sidoo kale ugu baaqay xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee dalkani Kenya in ay markaasi uga faa'iideeyaan sanduuqa horumarinta deegaanka ee loo soo gaabay CDF si ay markaasi ugu taageeraan dadka saboolka ee aan awoodin inay iska bixiyaan caymiska caafimaadka ee SHA. dhanka kalena madaxweynaha qaranka ayaa waxa uu maanta sheegay in qalab caafimaad oo lagu qiimeeyay adduun dhan 220 bilyan oo shilinka dalkani Kenya la gaarsiin doono dhammaan ismaamulada dalka ka hor dhamaadka sanadkan 2025 wuxuuna sheegay in 25 ismaamul horeyba loo gaarsiiyey qalabkii loogu talagalay. wuxuu intaasi ku daray madaxweynaha qaranka in cisbitaalada heerka 2 iyo 3 laga dhigi doono kuwa casriyeysan ka hor bisha November ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2025 si loogu dardargeliyo adeeg caafimaadka ee dalka. barnaamijka SHA ayaa la bilaabay bishii October ee sanadkeena soo dhaafanay 2024 isagoona bedelay barnaamijkan kii ka horeeyay ee lagu magacaabi jiray NHIF. ilaa hadda barnaamijka SHA ayaa aruuriyay adduun dhan 70 bilyan oo shilinka dalkani Kenya oo ah lacag caymis ah oo laga soo xareeyay ku dhawaad 4.8 milyan oo Kenyan ah, kuwaasi oo kala ah shaqaalaha rasmiga ama shaqaalaha aan rasmiga ahayn. mimi ninataka pia sema vile tunalipia leo, we are paying for 558,000 households that translates into 2.2 million individuals. Let me also commend that you can go to any hospital. Sasa tuko na mahospitali 9,000. Hiyo hospitali 9,000, any of those hospitals, you can now go to any of the hospitals with your today with your SHIF membership, and you can access any facility and any service. And this program is firmly anchored in law. Social Health Insurance Act of 2023 and the SHA regulations of 2024 mandate the national and county governments to identify and sponsor disadvantaged households. So, jambo tunafanya hapa leo iko na uwezo na support ya sheria ya Kenya. So we are perfectly within the law to do what we are doing. The Ministry of Health, in collaboration with the Ministry of Labor and Social Protection, has already created a list of households. This list is now available to our leaders, philanthropists, donors, and development partners who want to support deserving families. Mbali na wale 1.2 milioni, bado tuko na Wakenya wengine ambao wako katika kiwango kingine, na ndio sababu mimi nataka niwashukuru. Kuna watu wengi, watu wenye nia njema. Kuna rafiki mmoja wa Kenya pia, yeye amechangia, amesema atalipia Wakenya 113. Tafadhali tumpigie makofi huyo. Na amesema hataki kutajwa jina yake. Tunasema kwa huyo Mkenya, kwa huyo ndugu yetu
philanthropist, a man of great heart, on behalf of the people and government of Kenya, I want to say thank you very much for supporting our citizens who otherwise would not be able to pay. Leo hapa tumekuja kwa sababu tulikubaliana ya kwamba tutabadilisha mfumo wa afya na kwamba kila Mkenya kwanza, kupitia kwa ile sheria tumepitisha ya PHC, kila Mkenya ajisajili kwa SHA. Kujisajili peke yake bila ya kulipa pesa yeyote. Kila Mkenya unapojisajili, basi utakuwa na nafasi ya kwenda hospitali ile tunaita primary health facilities kwa level 3, level 2 ya dispensary, level 3 ya health center, level 4 ya sub-county hospital na zingine county hospital. Na ukienda pale kama outpatient, uko na homa, uko na nini, uko na malaria, uko na nini, unaenda pale, unaonana na daktari, unadungwa sindano kama ni kudungwa sindano, unapatiwa dawa kama ni kupatiwa dawa, alafu unatoka hapo unaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Wacha nirudie, kwa sababu kufikia sasa bado tuko na mahospitali katika counties zetu ambazo wanaitisha wananchi pesa. And I want to again repeat, no Kenyan going for outpatient facility in any hospital, dispensary or health center should pay. That service is already paid for by the government of Kenya. It should be offered. Citizens must go to hospital, they must be treated, they must be given medicine, and they should go home without paying any penny because it has been paid for by the government of Kenya.